Waradhumale Hospital mashruuc bulsho oo hirgalay waxaa saf loogu jiraa adeegyo caafimaad oo ku cusub deegaanka. Caruur ayaa laga talaalayaa cudurro ay ka mid yihiin jadeecada, jixda iyo gowracatada. Hooyooyin deegaano kala duwan ka yimid ayaa loo sameynayaa baaritaano kala duwan. Dhaqaatiir isxilqaan ah ayaana waqtigooda iyo aqoontooda ugu adeegaya bulshada deegaanka. Adeegyadan caafimaad waxaa baahi weyn u qabay caruurta iyo waayeelka oo muddo dheer deegaano aad u fog u aadi jiray. Ma ahan mashruuc ay dawladda gacan ka geysatay hirgelinta Waradhumale Hospital, balse aan dib ugu laabano sheekada shaqadan guuleysatay halkay ka soo bilaabatay. Dhamaadkii 2023 ayaa dhalinyaro iskood u istaagay waxa ay deegaankan Waradhumale ka dhagax dhigeen dhismaha isbitaalka. Dhaqaale laga ururiyay bulshada qurba joogta ah ee deegaanka ka soo jeeda oo ay weliyaan ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee dadka ka soo jeeda Waradhumale ayaa lagu dhisay isbitaalkan oo ka kooban 9 qol iyo masqulahooda. Hirgelinta Waradhumale Hospital waxa ay rajo u noqotay hooyooyin ku dhawaad 100 kiiloomitir loo qaadi jiray marka ay foosho qabato, kuwaas oo qaarkood wadada ku dhiman jiray iyo caruur aan haysan adeeg caafimaad. Waa mashruuc guul u ah 700 oo qof oo lacago ay ka jireen mushaaraadkooda ugu deeqay dhismaha xaruntan si loo badbaadiyo hooyada iyo ubadka deegaanka. Waxaana uu sharaf iyo qiimo ugu fadhiyaa dhalinyarada waqtigooda ku bixiyay kamira dhalintiisa. Dawladda Hirshabelle oo ay bulshadan xaq ugu leeyihiin adeeg caafimaad ayaan wax gacan ah ka geysan. Waxa uu tusaale u yahay sida iskaashiga iyo wax wada qabsigu uu u horseedi karo guulo la taaban karo iyo horumar deegaan oo waara. Waradhumale waa deegaan ka tirsan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan, waana magaalo ku socota wadada horumarka maadaama ay taageero ka helayso walaalaha dunida daafaheeda ku kala fiirsan ee asal ahaan ka soo jeeda.